qaybtan waa qaybtii saddexaad waa tirbeelkii wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda dawladda idil wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ayaad maqli doontaan iyo xogaha marba marka dambaysta daba dhacaya iyo dagaalada aadka u baan dawashana qiimaha leh horta waa 12 bisha ururka xisbillahi ayaa wali sii wada dagaalada iyada oo ay sidoo kalena ay jirto dadaalada aadka u xoogan ee xabad joojinta iyada oo xabad joojinta ay u muuqatay saacadii ugu dambeeyay laakiinse la sii kala aargoosanayo ururka xisbillahi waxay rabaan inay sii diraan fariimihii ugu dambeeyay ee qoysgoynta dagaalka loo bixiyay ee gabi ahaanba Israa'iil u qoysgooyay ciidankeedii dhulka foodna ay dari kari waayeen waddanka Lebanon hilaada iyo aqoonta in u leenahay sida weyn dagaalada dalalkaasi ayaynu idinku sheegay barbilowga dagaalka intaysan Israa'iil bilaabin in aysan fijaan ka cabi doonin marka ay noqoto dhulka Lebanon tan iyo inta ciidamada waddankaasi ka dagaalamaya ee awoodda badan ee ururka xisbillahi ay joogaan kuwaasoo ayagu leh awood ugu sarreysa dhinaca dhulka dhawaan waxa soo bixi doona daraasado kale oo dib u doona taariikhda iyo ciidanka dhulka ee ugu awoodda badan ee bariga dhexe yaa leh baa imaan doonto taasna haddaan sii hilaadinaya awoodda ugu badan ee ciidanka bariga dhexe ee dhul ee dagaalamay anigu dad aan dagaalamin ka hadli maayo ciidamo uun dee la sheego oo inay jiraan iyo inay jin iyo insi waxay yihiin Masar iyo Turki iyo de waa ciidamo inay dagaalameen in kale aan la aqoonin ciidamo inay badan yihiin waa la yaqaan laakiin ciidan dagaalamay dagaal dhacay oo dhinaca dhulka ciidanka ugu awoodda badan ee maanta ka jira bariga dhexe waa ciidanka xisbullah waxaana taasi ay ku muujiyeen afaafka dagaalka iyo jiidaha la isku mutay kuwaasoo gabi ahaanba aakhir ka keenay in dawladda Mareykanku ay ku bixiso wax kasta iyo diblomaasiyad kasta iyo tabar kasta in si aad u xoogan looga bariyo looguna qanciyo in ay joojiyaan xabadda Israa'iil bal waxa ka haray ciidankeeda dib uga gurato dhulka ay soo buuxiyeen ciidanka Israa'iil ma waxay haystaan magaalooyin ka tirsan mise way galeenba ma jirto wax magaalooyin oo ay qabsadeen oo ka tirsan dhulka Lebanon waana laga cawriyay waa loo qusgooyay isla markaana iyagoo kabna lulay midna la laadinay ayay goorsi horisay bilaabay in si iskooda mutadawacnimo ay ciidankooda ogala baxaan kadib markii loo qusgooyay isla markaana laga joojiyay inay horumar sameeyaan ururka xisbillahi dhanka kalena gantaalaha markay noqoto iyo awoodda ballistic missileska ayagana meelba ayay dhigteen Israa'iil wax ay ka faa'iiday dagaalka ee Lebanon la aaday oo aan ahayn inay burburisay goobo iyo dhismayaal ma jirto sida ay qaramada midoobay ay sheegtay burbur aad xoogan ay Israa'iil u geysatay guryaha iyo daaraha iyo goobaha manaaradaha waaweyn iyo markaasi meelaha ay jajabisay taasi waa xaqiiq hase yeeshee marka ay timaado in dagaal dhinaca dhulka ay geysatay oo weyn oo wax ka wadisay ma jirto madaxa guud ee la shaqeynta xogayaha ku-xigeenka xogayaha qaramada midoobay ee arrimaha amniga caalamka iyo howlgallada ayaa ku tilmaamay in xaaladda loo geystay qaar ka mid ah magaalooyinka iyo dhulka ay tahay Lebanon kuwa burbur aad xoogan ee Israa'iil u geystay gaar ahaan Israa'iil ee bartilmaameedsatay goobo istiraatiiji ah iyo goobo kale oo aan ahayn kuwa istiraatiiji ah laakiinse ah kaabayaal dhaqaale oo dadweynuhu ay leeyihiin taasna haddii ay ku tooqiso iyo haddii ay ku markaasi tamaanasaba ay dhacday oo tahay dhacday iyo fakti goobta ka dhacay hase yeeshee waxaa dhinaca kalena la sheegay in xasuuqa ka dhacay ee magaalada Qasa iyo agagaarka marinka Qasa ee Israa'iil ay sii wado mar kale uu muujinayo sida ay dhibaatooyin aad xoogan u geysayso Hans von Spoknik oo horey u ahaa madaxii ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadanimada ee isku xidhka waddanka Ciraaq ayaa mar kale sheegay in qaramada midoobay ay baaritaanada ay samaysay oo dhan ay ka soo baxday natiijo isku mid ah oo cadeynaysa in Israa'iil ay geysatay xasuuq naxariis darro ah si adraadeedna la joogo waqtigii Israa'iil lagu qanci lahaa in laga qaado talaabooyin wax ku oola oo ugu dambeyn dhaliya ayaa leeyahay in si aad iyo aad u xoogan ay ugu guuleysato in markaasi ay u joojiso xasuuqan hadii kalena ay u fashilantahay ay u cadayso dhanka kalena madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto ayaa waxa uu fariin uu ka soo saaray isla markaana khudbad ka jeediyay tartanka waddanka Kenya ay u gali doonaan inay qabsadaan kursiga weyn ee qaaradda Afrika ay doonayeen inay ku hogaamiyaan iyo sidoo kale hanaanka dhinaca isbedelka dalkiisa khudbad uu madaxweynaha waddanka Kenya u jeediyay shacabkiisa ayaa waxa uu sheegay in waddanka Kenya uu guuleysan doono wuxuuna sheegay in Kenya ay ka imaan doonto dhammaanba waxyaalaha waaweyn ee hortaagan isagoo sheegay in sidoo kalena ay Kenya ay ka adkaa doonto cid kasta oo cadow ku ah oo barwaaqadeeda hortaagan isagoo dhinaca kalena sheegay in uu gabi ahaanba uu rajeynayo in uu horay u sii wado in guulo aad waaweyn oo dhinaca dibadda iyo gudahaba uu waddankiisa u soo hooyo isla markaana uu sharaf huwiyo muwaadiniinta dalka Kenya ee isaga ku ogolaaday waxa uu sheegay inuu hoos ka soo dhisi doono dhaqaalaha waddanka Kenya isla markaana uu keeni doono hanaan heer isbedel oo xoog leh isagoo dhinaca kalena ammaanay siyaasadda arrimaha dibadda isagoo ka hadlayay markaasi muddo hadeerta sanad iyo dhowr bilood oo ay talada waddankiisa 2 sano ku dhawaada oo hadeerto iyo dhowr bilood waliba 2 sano iyo dhowr bilood oo talada waddankiisa uu hayay waxa uu sheegay inay muhiim tahay in ku taamo in waddanka Kenya uu u socdo dhaqaalahan meel wanaagsan isla markaana uu qanciyay maalgashiyaal aad u badan waddankan hadeerta tartan aad u xoogan loogu jiro si loo maalgashado waxa kale oo aad iyo aad u ammaanay sida muuqata habsami u socodka waddanka iyo dhaqaalaha iyo ergeynta
loo ergeynayo ayuu wax ititibinta aadka u ballaaran ee weyn ee dalalka qaarkood ay la soo doonanayaan dhaqaalahan Kenya ayaa waayadii ugu dambeeyay oo dhan waxa ay ka waday markaasi marka dib u habeen dhinaca dhaqaalaha dalkeeda maamul goboleedka ayaguna Jubaland ayaa wasiirkooda qorsheynta Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa mucaaradka Jubaland oo iyaguna dhawaan sheegay in ay sameeyeen guddi doorasho ugu baaqay inay si nidaamka doorashooyinka waafaqsan Jubaland ka soo qayb galaan tartanka doorashooyinka si salmiyan u yimaada anigoo qadarinaya cid walba oo xukuumadeena ka aragti duwan doonaysana kursiga madaxtinimo waxaan ku boorinayaa inay uga soo qayb galaan nidaamka doorashada iyagoo ilaalinaya nabadgelyada iyo xasiloonida bulshada reer Jubaland ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdi Axmed wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee maamul goboleedka Jubaland magaalada Kismaayo ayaa la sheegay in lagu soo xulay xildhibaano kuwaas oo qaar ka mid ah siyaasiyiintu ay durba ay soo dhaweeyeen isla markaana ay ku tilmaameen in ay tahay mid aad iyo aad u weyn oo horumar laga sameeyay hase yeeshee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa u aragtay arrintaasi in ay tahay mid sharci darro ah iyadoo dawladdu ay sheegtay gorsii wareysay ra'iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya in aysan gabi ahaanba uusan xaq u lahayn in uu qabto Axmed Madoobe wax doorasho ah ayagoo sheegay inuusan sharciyad haysan tan ayaa imaanaysa iyadoo dhinaca kalena ay dawladda federaalka Soomaaliya iyo xildhibaano la sheegay inaysan aqlabiyadoodu dhammayn ay sii wadaan go'aamin ansixin ah xeerar iyo ururo wax loogu yeeray kadib markii guddi si iskiisa oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u dhistay ay arrintaasi bariga ugu dambeysay sii wadeen xildhibaanada labada gobol ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan wada jira oo la sheegay inay shalay galab yeesheen mar kale waxaa la sheegay inay ansixiyeen meel marinta wax loogu yeeray xeerarka ayaa waxa ay ku tilmaameen in 177 xildhibaan oo indhowta la sheegay inay joogeen ay sii wadaan aadan nuur madoobe oo loo yaqaano sheekh aadan madoobe ayaa sheegay inuu xeerkan uu ku dhawaaqay inuu asax yahay xeerka cusub ayaa tilmaamaya shuruucda iyo xeerarka lagu hagi doono ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka si loo hubiyo in ururada iyo xisbiyada siyaasadda ay ku shaqeeyaan qaab hufan oo waafaqsan dastuurka dalka ayaa leh wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh oo kulanka labada gole goobjoog ka ahaa ayaa ka mahad celiyay wuxuu ugu yeeray si socodsiinta qorshayaasha qof iyo cod ee dalka ka socota xilli arrintan aysan jirin cid kale oo hadal haysa marka laga reebo madaxtooyada Villa Soomaaliya iyo dhowr qof oo kale oo ay u magacawday ayadoo sidoo kale la sheegay in baarlamaanku ay haba yaraateen aysan aqlabiyadiisu dhammayn in dhaweetana aysan jirin aqlabiyad baarlamaan oo dhameystiran oo halkaasi ka jirta ama ka soo jeejiyay oo markaasi la isku halay karo gaanka gardaroor doosha qiimaha leh qodobka ugu dambeeya arrintan aan kaga tagi doono doosha qiimaha leh wadalka Japan ayaa ra'iisul wuxuu ku dhawaaqay in ayadoo curuur aad u xoogan iyo ciriiri laga dareemayo dunida halis aad u weyn soo jeejiyay hubanti la'aan dhinaca amnigaana ay soo food saartay dunida oo kale haddana inuu door bidayo waddankiisu inuu cilaaqaad aad iyo aad u wanaagsan uu la samaysto ama uu la yeesho ayay yiraahdeen waddanka Shiinaha dalka Japan wuxuu isku dayi doonaa inuu khafiifiyo culayska dhinaca siyaasadeed iyo kan amni ee ka haysta dalka Shiinaha Japanka ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi ayaa waxa uu sheegay inuu isku dayi doono in ay gabi ahaanba labada dal ay ka wada noqdaan isku bog kadib markii uu la kulmay Xi Jinping shir duceedkii G20 sidoo kalena ay kasoo bilaabeen wada hadaladooda shirkii Asian Pacific Economic Cooperation ee APEC loo yaqaanay ee ka dhacay magaalada Lima ee xarunta waddanka Peru markii dambana ay isugu tageen magaalada Rio de Janeiro ee xarunta dhaqaalaha weyn ee waddankaasi Brazil si kastaba ha noqotee dawladda dalkaasi ayaa warbaahinteeda qaranka ee loo yaqaano NHK waxa ay sheegtay in ra'iisul wasaaraha cusub ee waddankaasi uu raadinayo inuu kala khafiifiyo culaysyada waddanka ra'iisul wasaare Shigeru Ishiba ayaa waxa uu aaminsan yahay in waddanka Japan marxaladahan uu ku jiro si yar looga ititibiyo isagoo dhowr jeerna soo hadal qaaday in waddanku uu isweydiiyo inuu ku sii tirsanaa doono ilaalin ciidamo shisheeye oo waddanka yuurura inuu qorshe kale oo ka duwan uu sameyn doono taasoo ay ku jirto ayuu isku tashi ballaaran hagaajin iyo kor u qaadis ayuu dhinaca hanaanka dhismaha ciidanka qalabka sida iyo waliba xilliyada tartanka aadka u xoogan in la yareeyo curfiga iyo cunfiga weyn ee dagaalka ay carab in lagu adkeeyo xasarad iyo colaad gaanka gandunoor dabashana qiimaha waa tarbeelka wararka wacala dhinaca daraasada dabashana qiimaha qaybta afraad